madaxweyne ku-xigeenka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Saylici oo safar shaqo ku jooga magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer ayaa mashaariic kala duwan ka dhagax dhigay magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer. Mashaariicda madaxweyne ku-xigeenka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland Cabdiraxmaan Ismaaciil Saylici oo dhagax dhigay ayaa waxaa kamid ah librariga magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer, waxaana dhagax dhigay madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ku wehelinaya maamulka gobolka Togdheer ka degmada Burco qaar kamid ah golaha wasiirada. Madaxdii kala duwaneed ee halkaasi ka hadasheen waxa hadalladoodii kamid ahaa sida tan: loo yaqaano waddan dhagax dhigayna wadadaasi waxay ka mid tahay mashruuca JPLG-ga kaasoo ay iska kaashadaan dawladda hoose iyo hay'adaha JPLG-ga. marka wadadaasi waxa weeyaan 2 kiiloomitir laakiin 3 meelood loo kala qaadayo, qayb nafaqo horteeda ka timaada oo ilaa halka masaajidka Jarmalka ku xidhanta iyo tan oo halka nafaqo kaga xidhanto tiis ku noqdaan iyo halka laga qaadayo hafayo ka dabadeed oo ilaa Saleebaan kullu la gaarsiinayo. librarigii Burco waa kii ugu horeeyay Burco yeelato. maanta anigoo gudoomiyaha degmada aynu hirgalno bartan ka dhagax dhigayno oo maalin dhow arkaysaan isagoo samaysan insha Allah. kuwan iyo kuwa kaleba ayaa taariikh gaar ah madaxweyne ku-xigeen waa library weyn wuxuu isugu jiraa qaybtii caruurta iyo qaybtii dadka waaweyn meeshii lagu doodayay ee wax dadaal badan socod dheer aan u soo galay oo aan muddo dheer ugu jiray in Burco ay hesho library international library oo maanta micnaheedu yahay ardayda 600 ee aad sharafta guddoonsiinaysaan iyo CV-yadooda halkii ay wax ku akhrisan lahaayeen ee u soo rajici lahaayeen ama ay wax ku bari lahaayeen dadka soo socda jiilka kaasoo aan tacab dheer u galay dadkii horena ay u baahnaayeen. adiga madaxweyne adigoo qaranka nooga mas'uula hadda heer qaran maanta naga dhigtay Allah ya baarig wixii aan ugu tala galay inaan idin la nimaadna iyadoo official letter aan ka daba keenna insha Allah billahi kariim. maanta farxad bay noo tahay runtii hamigan oo ahaa in badan soo socday wajiyo badan yeeshay marxalado kala duwan soo maray maanta inuu wajigiisii dumintiisii iyo bilaafistiisii dhisidiisii iyo shaqayntiisii aynu marayno taasuna farxad bay noo tahay. waxaan halkan baaq dheer uga dirayaa dhammaan ehlu sharafka ehlu karamka Togdheer iyo reer Somaliland haddii qurba joog yihiin iyo haddii qurba joog yihiinba waxaanu leenahay maanta in yar baa hadhay hinjiyay baynu maraynaa. qolyaha qurbaha waxaan loo jooga ayaa haddii ilahay idmo ay saddex mashruuc saaka dhagax dhigaysid ay ka mid yihiin ayaa ka soconto ka bilaabmi doona haddii ilahay idmo degmada Burco iyo guud ahaan gobolka. aad iyo aad baanu kaaga mahad celinaynaa. reer Burco waa hadal badan yihiin baaliyada madaxweyne hadalkii imika waxaan ku bedelay ficil iyo waxqabad baanu ku bedelay. aad iyo aad baan kugu soo dhaweynaa mudane madaxweyne mar labaad iyo mar saddexaad kaaga mahad celinaynaa. library-gii ama hoygii kutubta ama rugtii kutubta ee Burco wuxuu ka mid yahay mashaariicda uu maanta dhagax dhigayo madaxweyne ku-xigeenka yooftigan uu wato oo mashaariic badan oo kalena ay ka mid yihiin. wasaaradda waxbarashadu waxay sanadka qorshe ugu jira inay 5 magaalo ka dhisto library-yo oo ay ku jirto Boorama, Burco, Laascaanood, Ceergaabo iyo Caynabo haddii la yiraahdo. haddii resource-keenu uu kordhana waynu kordhin doonaa laakiin qorshaha waxa noogu jira 5 magaalo. mashaariicda ay dawladda hoose iyo bulshadu iska kaashanayaan iyo barnaamijka JPLG iyo wasaaradda hawlaha guud aynu dhagax dhigayno wadooyinka imika aynu soo dhagax dhignay iyo maktabaddan weyn ee quruxda badan leh ee dhisaankeeda ku sawiran yahay wasaaradda hawlaha guud ay dhisaankeena soo diyaarisay. aad iyo aad baan u faraxsanahay inaan ka soo iyo golihii deegaanka degmada Burco ay naga codsadeen in maartay mashaariicda sanadkan 2022 hadday yihiin kuwii mashruuca JPLG-ga hay'adaha iska kaashadeen iyo dawladda caalamiga iyo hadday yihiin tii ay ka bixineen fankooda ama maartay dakhligooda ka bixineen iyo wasaaradda aad iyo aad baan runtii ugu faraxsanahay in intaas oo wado iyo halkan aan joogno oo runtii ugu muhiimsanayd oo rugta kutubta iyo qoraalka iyo akhriska lagu akhriyo library-ga runtii qiimo weyn ayuu dhalinyarta iyo aqoonyahanka Soomaaliland u leedahay halkan. waana laf dhabarta bini'aadanku ama wadannada horumarka